ku soo dhawow shabakada Sirta Media haddii ay tahay marka kuugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u jawaabay siyaasiyiinta ka soo horjeeda maamulkiisa isagoo u sheegay inuusan gorgortan ka galin qarannimada isla markaana uuna aqbali doonin cid kasta oo ka hor imaanaysa qarannimada haddii ay jiraan kuwa aaminsan inay qasab ku hogaamin karaan dalka waxaan leenahay dalkeena waa ka gudbay xilligii jahwareerka ayuu yiri madaxweyne Farmaajo asagoo ku adkaystay inuusan marnaba aqbali doonin in dib loo celiyo qarannimada iyo horumarka dawladda iyo caqabad loo dhigo ama la is hortaago dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed warkan ayaa u muuqday mid jawaab u ah hadalla dhawaanahan ka soo yeeray madaxweynayaashii hore ee dalka oo kala ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayagoo madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in uu dalka ku wada dariiq khaldan iyo kala tag waxaa naga go'an inaan dhageysanay cid kasta oo wax tabanaysa waxaa naga go'an inaan garowshiyo siinay cid kasta oo garowshiyo leh waxaa naga go'an inaan raali gelino cid kasta oo raali gelin mudan waxaa naga go'an inaan ka miro dhalino dib u heshiisiin waarta oo ka hirgasha dhammaan geyga Soomaaliyeed laakiin marnaba ma ogolaan doono inaan dib u laabano marna ma ogolaan doono inaan aqbalno wax qarannimo ka yar marna ma aqbali doono cid kasta oo is hortaagta dib u yagleelida qarannimada Soomaaliyeed ayuu sii daba dhigay madaxweyne Farmaajo asagoo carab aan ay ka muuqato khudbadna ka jeedinaya furitaanka kalfadhiga lixaad ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dadka qaarkii ay si qaldan u fahmeen nidaamka federaalka kaasoo uu sheegay inaysan madax banaani gaar ah siinaynin dowlad goboleedyada wuxuuna yiri nidaamka federaalka waa nidaam ummadda Soomaaliyeed ay dooratay waa hab maamulka dawladeed ummadda Soomaaliyeed ilaa ay ka go'aansato in ay wax ka bedesho dawlad ama koox gaar ah wax ka bedeli karta aysan jirin waxaa nasiib darro ah in dad gaar ah si qaldan ay u fahmeen nidaamka federaalka wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawlad goboleedyada ma siinayso madax banaani gaar ah waxaan idin xusuusinayaa ilaalinta qarannimada madax banaanidiisa waxay saaran tahay dawladda federaalka Soomaaliya oo aan anigu ugu sareeyo taasoo la macno ah in Farmaajo uu maanta meel fagaaraha ka qirtay in uu yahay nin kaligii taliya madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweyne Axmed Madoobe dawladda federaalka Soomaaliya oo maalmahan booday inay joojiso inaysan siyaasiyiinta ka qayb galin xafladda caleemasaarka ayaa ku guuleysan weysay inay madaxweyne Dani ku qanciso inuusan ka qayb galin xafladdaasi wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya kana soo jeeda deegaanada Puntland ayaa tagay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari kuwaasoo madaxweynaha Puntland kala hadlay inuu ka baaqsado xafladda caleemasaarka hayeeshee la sheegay intaasi uu ka diiday wararka laga helayo maanta magaalada Boosaaso ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu maanta oo Arbacaha ku wajahan yahay magaalada Kismaayo si uu uga qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe si kastaba hore magaalada Kismaayo waxa ugu sugnaa madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaana la filayaa in ay siyaasiyiin kale oo hor leh ay ku biiraan dhanka kale saraakiil ka tirsan dawladda Kenya ayaa jawaab adag ka bixiyay dacwad ay dhawaan dawladda Soomaaliya u gudbisay hay'adda maamulka hawada ICAO ee qaramada midoobay saraakiishan oo la hadlay wargeyska Daily Nation ayaa sheegay in aysan wax shaqo ah ku lahayn diyaaradii sidii madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed ee dhawaan ka degtay garoonka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose sidoo kale waxa ay saraakiishan sheegeen in ay Kenya u hoggaansamayso xeerarka caalamiga ah isla markaana aysan marnaba ku xadgudbeen hawada Soomaaliya ugu dambeyn waxa ay tilmaameen in dawladda federaalka ay xaq u lahayd inay qabato diyaaraddaas isla markaana ay difaacato hawadeeda dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan xayiraad saartay Kismaayo balse waxaa jabisay diyaarad ka timid Nairobi taasi oo ay dawladda ku dacwaysay hay'adda hawada ICAO si wax loogu weydiiyo dalka ay ka timid oo ah Kenya arrintan ayaa sii xoojisay xiisadda labada dal oo markii hore isku haystay muranka badda oo haatan dacwadiisa ay ka furan tahay maxkamadda cadaaladda ee ICJ madaxweyne Farmaajo ayaa xalay xilli dambe oo ku beegneed koodii habeenimo kulan isugu yeeray xubnaha beesha wargadur ugu jira dawladda federaalka kulankaas ayaa la xiriiray qorshaha Farmaajo uu ka leeyahay deegaanka Galmudug iyo sidii uu xaqiijin lahaa inuu ka gaaro danihiisa xildhibaanada iyo wasiirada soo xaadiray ayaa ahaa kuwa qayb ka ah dawladda ha noqdaan qaar lacag laaluush joogto ah ka qaata dawladda federaalka ama kuwa xilal ka haya dawladda Farmaajo ayaa si aan ka leexleexasho lahayn ugu sheegay beesha wargadur in ay si buuxda u taageeraan qorshihiisa Farmaajo oo u muuqda mid ka soo horjeeda qorshaha gaarka ah ee uu Xasan Cali Kheyre ka soo sameystay Galmudug ayaa si dadban oo farsamaysan u cadeeyay in go'aanka lagu dhisayo dawlad goboleedka Galmudug uu noqon doono mid isagu u hogaamiyo wixii hadda ka dambeeyay isaga kaliya ay kala xiriiri doonaan hadalka ka soo yeeray Farmaajo ayaa muujinaya in uu hadda hurdada ka soo toosay oo uu arkayo qorshaha lidku ku ah danihiisa ee uu Xasan Cali Kheyre samaystay kaasi oo Kheyre ku doonaya inuu madaxweyne u noqdo Axmed Qoorqoor halka gudoomiye baarlamaan uu u rabo inuu ka dhigto Xuseen Ciidow oo ay isku qoys ka soo wada jeedaan beesha wargadur oo ahayd mid lagu yaqiinay hoggaan iyo qab weyn ayaa ku soo dhamaatay inay u kala dhuntaan Kheyre iyo Farmaajo
ayaga oo aan marnaba ku heshiin karin in ay ka dhisaan deegaanka Galmudug dowlad goboleed ka turjumaya danaha beelaha dega Galmudug. Khayre iyo Farmaajo ayaa hore ugu guuleystay in ay kala diraan ururka Ahlusunna wal Jamaaca, ayagoo sidoo kalena meel cidla ah soo dhigay Axmed Ducaale Geele Xaaf. Asbuucii hore waxaa lacag iyo jago lagu iibsaday Cabdi Qaybdiid oo hadda ku sugan dalka Turkiga, halkaas oo uu guri ku iibsanayo lacagtii Farmaajo siiyey. Waxaa fashil lagu sameeyey shirkii Hobyo oo ayna jirin cid meel marin karta go'aanadii lagu soo gaaray. Ganacsatadii beesha oo ay ugu horeeyaan Xuseen Goley, Maxamed Deelaaf, Axmed Nuur Jimcaale iyo kuwo kale oo la aamusiyey, iyo weliba Cabdikariin Xuseen Guuleed oo noqday aalad uu Fahad Yaasiin ku shaqaysto. Dhanka kale, warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay magaalada Boosaaso ayaa waxa ay sheegayaan in dowlad goboleedka Puntland ay si cad u diiday dhammaan qodobadii uu xambaarsanaa dhambaalkii madaxweyne Farmaajo ka yimid oo ay sideen wasiiro ka soo jeeda Puntland. Ergada uu Farmaajo u soo diray madaxweyne Dani ayaa ka koobnaa 5 wasiir iyo la taliye oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda federaalka Axmed Ciise Cabad oo shalay galabkii soo gaaray magaalada Boosaaso. Ergadan ayaa loo soo dhiibay dhambaal ka yimid Farmaajo, kaasoo sheegaya in dowladda federaalka ay aqbashay wax walba oo Puntland ay dood ka qabtay, balse ay shuruud ka dhigtay inaysan ka qayb galin caleemasaarka Axmed Madoobe. Kulan socday muddo saacad ah oo dhex maray wafdiga federaalka iyo Puntland ayaa ugu dambeyn kusoo idlaaday natiijo la'aan. Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ergada madaxweyne Farmaajo u gudbiyey go'aano ay ka mid ahaayeen in Puntland ay ka qayb galaysa caleemasaarka madaxweyne Axmed Madoobe oo uu yahay go'aan dowladeed oo lama taabtaan ah, in Puntland diyaar u tahay dhexdhexaadinta dowladda Jubbaland iyo dowladda dhexe caleemasaarka kadib, in Puntland aysan gorgortan ka galin arrimaha masiiriga ah ee dalka iyadoo dana gaar ah la ilaashanaya. Madaxweyne Dani ayaa kulankaasi kadib cashi sharaf ugu sameeyey madaxtooyada Boosaaso ergadii madaxweyne Farmaajo, waxaana shabakadda Sirta Media loo sheegay in ergada ay xalay seexdeen magaalada Boosaaso isla saakana uu diyaarad u saaray magaalada Muqdisho. Shacabka Puntland ayaa si diiran u soo dhaweeyey go'aanka taariikhiga ah ee uu qaatay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani. Dhanka kale, xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa wajahaya caqabado iyo culays badan oo dowladda Soomaaliya ay kaga hor istaagayso in ay tagaan xarunta guddiga doorashada qaranka. Fawziye Xaaji Aadan oo horey u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, haddana ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, ayaa sheegtay in ay dhibaato weyn ka taagan tahay tagitaanka xafiiska guddiga madax bannaan oo ku yaal gudaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Waxay sheegtay inaysan xisbiyada tagi karin halkaas oo aysan awood u lahayn, taasina ay hor taagan tahay shaqadii guddiga. Waxay axsaabta kula talisay in guddiga laga caawiyo sidii loogu dhisi lahaa dhulkii dhawaan laga sii magaalada Muqdisho, taasoo ay ku tilmaamtay inay tahay mid dan u ah dalka iyo xisbiyada. Mas'uuliyiinta xisbiyada dhibaato weyn ayay ku qabaan inay tagaan xarunta guddiga madax bannaan ee doorashooyinka ee ku yaala madaxtooyada, ayay tiri Fawziye. Fawziye ayaa sheegtay inay dowladda Soomaaliya ka doonayaan in ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Waxay sheegtay in xisbiyada mucaaradka ah ay u diyaar garoobeen in ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah si loogu gudbo habqaybsiga 4.5. Xisbiyada midoobay waxaa ka go'an oo ay garteen in danta dalka ay ku jirto in laga gudbo 4.5 loona gudbo codeyn qof iyo cod ah. Waxay tilmaantay inay arrintaasi 2017 ay ku heshiiyeen dowladdii hore iyo maamul goboleedyada, waxayna sheegtay inay tahay wax fudud oo la qaban karo. Guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaad ka heli kartaa Sirta Media.